muhiimadda marka kelimada ama khudbada ay ku saabsanta waxay tahay inaan ogaano barakay maxaad ahayd barakada markii in la qeexa ay noqoto waxaa la yidhaahdaa waa ziyaada iyo kororsiino iyo khayrka oo tiro bato iyo khayrka oo joogtooba oonan go-in saasaa lagu sheegaa amaba culimada ay ku fasiraan barakada marka wax yar hadduu allah subxaanahu wa tacaala barakeeyo aad bay u bataan wax yar haddii alla u barakeeyo way weynaadaan wax badan hadduu alla barakeeyo way joogtoobaan wayna wanaagsanaadaan aadna wax ugu tartaa qof xanuunsan hadduu alla barakeeyo caafimaad buu u helaa qof lunsan haddii baraka ay ku degto hanuun buu helaa qof lunsan amaba jidka ka lumay haddii ilaahay u barakeeyo subxaanahu wa tacaala jidka ayuu qabsadaa qof khasaaray adduun iyo ganacsi iyo waxbarasho ku khasaaray haddii baraka ay ku degto ilaahay subxaanahu wa tacaala ribix ayuu u dabamariyaa sidoo kale qof murugsan haddii ay baraka ku degto murugta ilahay wuu ka qaadaa qof cidloona haddii baraka ay ku degto wuxuu helaa wehel aad u qiimo badan marka qof isbaraanbaray oo xaaladiisa isku toosnayn oo meel laga jiro garan la haddii ilaahay subxana wa tacala baraka u geliyo oo barakada ay ku degto xasilooni iyo itmiinaan ayuu rabbi subxaana wa tacaala siiyaa barakada marka dhammaanteed meel kasta oy gashay meel kasta ka imaadaba dhan kasta ka imaadaba min allahi waxdahu alla keligiisa ka imaada lidalika tabaaraka erayga isaga ah ilahay keligii uma la dhihi karaa qur-aanka 6 jeer ayay ku soo aroortay tabaaraka ay ku soo aroortay afar waa suurat furqaan midna waa suurat tabaarak midna waa suurat al-a'raaf 6daas jeer ilaahay waxaan ahayn laguma sheegin subxaana wa tacala walaa sunnada nabigeena calayhi salatu salaam kuma soo aroorin in tabaaraka waxaan alla ahayn subxaana wa tacaala lagu sheego macaanideeda marka lagu fasiro waxaa ka mid ah isaga ayaa barako badnaaday rabbigan subxana wa tacala lianna albaraka kullaha minhu barako dhanba xaggiisa ay ka ahaatay rabbigan subxaana wa tacaala lidalika barakada inay allah keligii xaggii ka ahaatay darteed ayaa ambiyada ilaahay subxana wa tacala rusushiisa ilaahay bay weydiisan jireen inuu barakeeyo barakadiisayna alla markuu siiya ay waxaa weeyaan gurubsan jireen ayuub calayhi الsalaam ayaa isagoo qabaysani ayaa ayax dahab sida ayaxa ah oo aad u tiro badan ayaa cirku alla ka soo daaday subxaana wa tacaala markaasuu intuu go-iisii marada qaatay ayuu wuxuu marka bilaabay inuu ku shuba oo markaas wuxuu yidhi ayuubow war waxaan soo kaama deeqin oo nabinimo kuma siino abcan soo waxaan kaamaanan deeqin adduunkan iyo waxaan qiimaha noocan aan lahayn soo kaamaanan deeqin markaasaa wuxuu yidhi ilaahayow cizigaada ayaan ku dhaartay baraka xaggaada ka imaaday kama maarmi karo maaran malihi kama maarmi karo ambiyada ilaahay baa marka aan barakada ilaahay subxana wa tacala weydiisan jireen unan ka maarmi jirin marka barakada waa hibo ilaahay subxana wa tacaala uu bixiyo haddii cumriga ilaahay barako uu kuu geliyo cumriga ay dheerayni waliba daaca ay la socoto qofka raadkii uu ka tagayna ilaahay subxaana wa tacaala camalkiisii ayuu barakayni sanadihii yaraa uu noolaa ayaa waxay u dhigmaysaa 100 sana iyo 10 sana ay u dhigmaysaa hadda dad dhowr 100 sano ka hor dhintay ama 1000 sano ka hor dhintay oo maanta nafcigoodii uu buuxa lahaayo badana kowi laba ma aha magacooda aan la daynaynin oo manaabirta laga sheegi oo masaajida laga sheegi oo idaacadaha laga sheegi oo majaalista lagu sheegi oo kutubaha ku qoran oo meel walba yeelo badana camalkoodii oo ilaahay barakeeyey caafimaadka markuu rabbi subxana wa tacaala qofka u barakeeyo oo qofkii caafimaadkiisa barako loo geliyo ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisii xitaa xanuunaha soo marmarayna laakiin awooddii araggii awooddii maqalkii awooddii dhan walba ayuu rabbi subxana wa tacala u kamilaya isagoo daacadiisana ilahay u waafajiyey markuu ilaahay maalka sidoo kale ilaahay barako u geliyo horta wuu kordhiyaa wuuna badiyaa wuuna wanaajiyaa wuuna tahmiir waxa loo yaqaano amaba inuu miro badan yeesho ayuu rabbi subxaana wa tacaala waafajiyaa sidoo kale saaxiibkiina wuxuu waafajiyaa qofkii maalkaa la siiyey inuu abwaabta khayrka oo dhan ku bixiyo awqaaftii masaajidii madaaristii dugsida qur-aanka aytaamtii khayrkii inuu ku bixiyo ayaa alla waafajiya ikhwaan alkiraam maanta inta muslimiin aho maanta dhaqaala haysato haddii xataa zakada bas ay bixin lahaayeen fuqaradan meelaha taagtaagan iyo curyaamiintan iyo dadkan indho lama saarin qofkii isagoo taagan oo muxuu aha adduunkiisii aad saad u wada camiran yahay ayuu ka tegi dadkii u baahnaayna ay muxuu ka dhimanayaan waa imtixaan shuxiga nafta qofka bini aadamka u geliyey
علماء ملهن وعام ملهن وصومالي ملهن وعرب ملهن ومد ير ملهن ومد وين ملهن ومد حنون قوا وحنون سن ملهن مد واسكم دتك ويسنن انت الا من رحم ربك ان يروكم وقوني وقليل ما هم ودد ادكم لكن وحويان ومصائب وحضرت الانفس الشح سدا ويان marka barakada ma ahan in xoolo badan lagu siiyo waa barakada inaad ilaahay xoolaha ku barakeeyo sidoo kale albaabadi in lagu bixiyo la rabay oo rabbi subhanahu wa ta'ala ku yasiro sidoo kale markuu xaaska ilaahay barako ku geliyo ilqabowsi ay ku noqotaa marka xageeda eegta farxad ayaa la kala dhacdaa hadii aad ka maqnaatana way ku ilaalisaa oo waxa weeyaan sharafteeda ilaashata iyo awlaadeeda gurigeedii ninkan waa sidii oo kale asna xaaskiisi ilqabowsi ayaa waxa weeyaan ay naagti ay u noqotaa ninkeedii oo ninkii muxuu ahaa wuxuu noqonayaa ilqabowsi oo khayr oo dhan buu kala kulmi haduu ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo cilmiga qofka markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo wanasal allah albaraka fi ilmi amal iyo alla ka baqitaan ayuu ilaahay jidkiisa u furaa cilmiga soo lama siin cilmiga allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ayuu nabigeena ku duceysan jiray calayhi salaatu wasalaam cilman naafican haddii cilmigaada naafic laga dhigo baraka la geliyo cilmigaas ilaahay ka baqitaankiisa ayuu qof geliyaa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa sidoo kale cilmigaas qofku wuxuu u hogaamiyaa inuu ku dhaqmo cilmigaas wuxuu keeni ayuu ku hogaamiyaa isaga yaa ku intifaaca oo reerkiisa yaa ku intifaaca oo cid alla ciddii isaga ku milanta amaba la xiriirta ayaa ku intifaacda weliba xilligan hadda la joogo xataa cidda ka fogaa ku intifaaci oo waxa weeyaan social media iyo adduunkii oo dhan ayaa muxuu ahaa cilmiga u wada gaari lidalika ahlu cilmiga oo ilaahay diintiisa kuna dhaqmeen dhabtana ay ka tahay ku amal falan dadkana gaarsiiyeen intuu adduunka nool yahay baaqi bay noqonayaan ayagii laftoodii lawaa oo qabri ay galeen wayna galayaan shaki ma lahan laakiin raadkoodii quluubta mu'miniinta iyo muslimiinta baaqi ayuu ku yahay ajarkoodana insha allah tabaaraka wa tacaala wuu soconi ajirkoodana wuu soconi sidaa way dad baa dhintay laakiin karaamadoodii ma ayna dhimanin dadna way nool yihiin ayagoo dadka dhex jooga ayaa meyd socda ay yihiin oo qiimo ayna ku lahayn ikhwaan alkiraam dadka ibni aadanka ah waxaa loo furay albaaba aan la koobi karin dhaqaalihii meel baa laga furay shalay annaga ra-iis liisaan ahanay xaaladda xaggee joogtay baabuurtii lagu socon jiray bal fiiriyo guryihii la degnaan jiray fiiriya dharkii la xirnaan jiray fiiriya kabaha la wadan jiray fiiriya telefoonada la wadan jiray xataa oon aan fogeyn fiiriya weli qaar baa ka baaqaya waa shaahid ya nokia nooc yaray waa taqaanaan iyo Ericsson iyo yani fiiriya ayadoo xataa gacanta lagu haynin fiiriya xaaladda maanta la mara waad arkaysaan wax walba oo maadi ah waxaa laga dhigay kunjibaar maba dhihi karin laakiin wax aad u badan oo xaalad aad bay isu bedeshay ayadoo saa tahay arrinka isaga ah ma keenay xasilooni ma keenay qanaaca ma keenay amni ma keenay qofki inuu waxaan okobaadsado inuu ogolaado in nicmadaas uu haysto ma keenay muxuu keen la'ay balarka muxuu keen la'ay qof laga yaaba inuu 1 kilometer lugaan jiray ayaa maanta diyaarad raaci markaasuu saacad ku tagi tii ayadeed ma xasuusanay qofki qanaacadi ma taal maxaa keenay caalamkan adduunkood aragteen waxa laga sheekeynayaa sanadka 2050 marka la gaaro adduunka nuskiisa wuxuu noqonayaa faqri ihsaa'iyat waxa la keenay Allah yaabayso saasa dhici doonta bala dhici doonta waxa ka argagax maxaa keenay waa maxqul baraka barakadii baa la tartiray wax kala ma ahan barakaan weeyaan wax kala ma ahan barakada marka ilaahay baa laga dalbaa kaligi subhanahu wa ta'ala asbaabta marka barakada ee keento in lagu dadaalo weeyaan nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam markuu ka hadlay xadiis imaam muslim uu soo saaray wuxuu leeyahay abaarta ma ahan in roob la'aan idinku dhacdo abaar lama yiraahdo laakiin abaarta waa in roob adeshaan oo roob kala adeshaan roobku isaa u daa laakiin aanan xaba yaraatay wax baraka ah aanan roobka la gelin aafa iyo fatahaada iyo balaayo iyo ayax iyo waxa weeyaan cudurro ayaa la socda baraka ma laha muhiimadda marka waxa weeyaan bararka ma ahana waa barakada waxay soo dhihi jireen bararka iyo barta ma ahane waa barakada marka barakada in ilaahay laga dalbo subhanahu wa ta'ala asbaabteeda aan qaadano ayaa naftayda tiinaba kula dardaarmaya asbaabta aan qaadanayno waxa ugu horeysa ilaahay inaan ka baqno subhanahu wa ta'ala rabbigan suuratul a'raaf wuxuu aayad ku leeyahay ku taalo ama kamid ah suuratul a'raaf dadka
ahlu quraga ama ahlu tuulada ama ahlu magaalada haddii ay alla rumayn lahaayeen kana baqi lahaayeen barakooyinka samada iyo tan arlada ayaan u furi lahaynay saasuu rabbigan le subxaana wa tacaala laakiin way beeniyeen kadibna waxaa weeyaan waxaan ku qabannay oo lagu ciqaabay kasabkoodii xumaa dartiis ayuu rabbigan le subxana wa tacala tan kale oo barakada laga helo qur'anka ilahi in la barto subxana wa tacaala lagu tadabburo kitaabun anzalnahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi qur'anka dhan waa mubaarak bal adi u fiirsa markaad juz qur'aan akhriso iyo markaad 10 juz akhriso isma lihid markaad juz akhriso markaad 2 akhriso isma lihid xataa waqtigaada lagu barakayni dana hadana lagu fulini aroortii markaad 3 juz akhrisid ama juz ama 2 juz ama 4 juz ama 5 juz maanta ayada barakada waqtiga aad helaysa inaba caadi ma caafimaadkaada ka dareemaysaa risqigaada ka dareemaysaa awlaadaada ka dareemaysaa ehelkaada ka dareemaysaa xaaladaada ka dareemaysaa nafsiyaadkaada ka dareemaysaa in sax tabiir sidoo kale asbaabta barakada lagu helo waxa kamid ah in sunnada nabigeena la raaco subxaana wa tacaala markaad gurigaada gelaysa ood ka baxaysa masjidkaad gelaysa waad ka baxaysa dharkaad xiranaysa baabuuraad fuulaysaa suuqaad gelaysaa meel walba sunnada nabigeena ku dadaal calayhi salatu wasalaam waa xirzi waa barako socota dhammaanteedba sida weyn qodobka kaloo lagu dadaala oo barakada qofka uu ka heli waa duca nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka baryi jiray inuu risqiisa iyo wuxuu siiyey uu rabbi u barakeeyo ducada marka inaad ilaahay naftaada barakeeyo ood maalkaada barakeeyo ood awlaadaada barakeeyo ood cilmigaada barakeeyo ood dacwadaada barakeeyo oo allabaryaada barakeeyo oo waxaa weeyaan wax walba oo khayr oo rabbi ku barakeeyo inaad alla weydiisato waa ilahay ila isagaa barakada haya isaga markaa weydiiso ku siinaya udcuunii astajib lakum ayaa kuu taagan sidoo kale waxyaabaha laga faa'iido amaba laga helo barakada waxaa ka mid ah qaraabada in la xiriiriyo iyo qaraabada in la booqdo maxaa yeelay qofku waxaa laga yaaba inuu yihahdo wallahi waqtiga ciriiri ugu noqday meelaan iska qabtaan la ahay xaaladii suuqii iskuma aadano kan kale way awlaadii way kala yaaceen intaasaa igu taagan caafimaadka ash ma ahan wahaakada laakiin ma ogsoona mishkiladda meesha laga galay doqon qufacday meesha laga raacayna ma oga ay Soomaali dhihi jireen waxaa weeyaan mishkiladda waxaa laga yaabaa qaraabadiisii qofka gooyey bisma ogsoona asbadan igama lahan maxadan iga dhigi oo kaligay macdush iga saaray inuu yiraahdo laga yaabaa qofka waasil lama yiraahdo qofka markuu raximkiisa gooyo xiriiri waasil lama yiraahdo sidoo nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam kaas waxa la yiraahdaa mukafi wa abaalgude laakiin qofka waasilka qaraabada xiriiri markay ku jaraaray ku gooyaan xiriiri kaas weeyaan kan nabiga uu amaanay sallallahu alayhi wasallam oo laguna heli barakada fi kulli shay bi'idin bari tabaaraka wa ta'ala qodobka kale khaasatan dadka ahlu ganacsiga annagana ganacsigan u badan oo dogsoontiino meel waxaan joognaa khayrka iyo barakada iyo ganacsiga uu ku badan yahay qofku waa inuu ka run sheego ganacsigiisa hadda suuqyada haddaan dhex galno oon is yara wareysano waxyaabaha originalka ah oo shirkadihii asalka u lahaa ay soo sameeyeen sidoodii ah iyo inta feega ah yaa badan haddii la isweydiiyo waxaa laga yaabaa rag qaarna yidhahdaan waa siman yihiin qaarna yidhahdaan wax badan ayaa feega qaar waxaa laga yidhahdo feegaa tiro badan waxaa laga yaaba in loo gado inay original yihiin oo sax yihiin oo wixii asalka yihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay albayicaani bilkhiyaar labada wax kala gadanaysa khiyaar bay leeyihiin fain sadaqa haddii ay run sheegaan wabayana ceebta shaygaan ay caddeeyeen warkan waa feeg asalkiina waa kaas ay yidhahdaan kaba soo qaad ilaahi subxana wa tacaala wuxuu u barakeeyaa beecoodii barakadiisa beecoodii ayuu muxuu aha ilahay u barakeeya laakiin haddii ay qariyaan oy been sheegaan waa sida loo badan yahay laga yaabo in loo bata laga yaaba loo badan yahay laakiin way jirtaa dad noocaas way jiraan shaki ma lahan dadkan halkan maadaama khayrkii iyo cilmigu saa ugu shubmi looma badno laakiin dad weli muxuu ahaa aanan bahasha aad u gaarin ayaa jiro marka haddii ay qariyaan oy been sheegaan muxiqat barakatu baycihima barakadii beec ayaa la tirtiraa weligaaba lacag aruuri adiga wixii ismaba qabanayaanba iskuma toosna markaad maanta inta aad malaayiin dhigto berri way doc furuurmayaan halkaas ay ka shubmayaan waa baladan maxay ahayd markaad beridam wax ka soo inta ka soo leexiso xaggay muxuu ahay ka daadanayaan wahaakada waa imtixaan waxaa laga yaabaa qofku inuu lacag xaaraana soo shaqeeyo markuu wixii isku aadiyey oo isku aadan yihiin ayaa islaanta iyo astaalka geli markaas dhowr milyan baa laga qaaday canugu baa saas ku dhici meel uusan filayn baa looga bixini ma garanayo qofkii muxiqat barakatu baycihima macnaheeda maaha inaad xataa ganacsiga inaad ku khasaarta bas maaha laakiin waxaad isticmaalaysay iyo muxuu ahaa asbaabti kaaga bixinaysa ayaa lagugu furi inta lagaaga furi inta lagaaga furi inta lagaaga furi marka ikhwaan alkiraam in qofka mu'minka ah markuu ganacsi ku jira inuu ku dadaalo inuu run sheego ceebtana aad uusan qarinin gabagabadii qodobka u dambeeyo
وقفك مؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى هدو سميه بإذن الله بركو كهلي وإنه الدعاء النبي جانا كفائدة صلى الله عليه وسلم النبي جانا عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد وصوص هاري وأنا صحيحة أي أمدي سوء الدعاء دعاء سوى كل جن مرة هدي علم أتربط دعاء النبي محمد وكو دعاء قاضي ودن كذا مرة هدي أدحول ربط واسيد سوكله ميل الله ما شربت النبي جانا عليه الصلاة والسلام حجري اللهم بارك لأمتي في بكورها إلهي أمتي ده وحاد وبركيسا أرور كله هذا علمي مربتا أرورتك الله شجراسي مربتا أرورتك الله لذلك قفك أنا أرورتك لهن وأنت سك خوري 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 أفرس عشان سأسوكع وح وجار لما أرك لذلك وحيدهن يومك كجملك إن فاتك عجزه إن فاتك أوله فاتك عجزه ما ننت هذا أما وحكو برانيس أما تكوش قيسانيس أما ضلك عابديس وحويان والنفك جيل أكله ختيك أكلوا ختيك مركا أنت لقى قبتها ختيك ما سينت الله قبان كرا مثل وقت ما الله قبان كرا رجال لي ده هذا تقانه سورة قال ماهن ختيك مركا دي مربع سنك إيه أفك إيه محوها قيبتها نهار قارت أي كود أفته ويحكوها هرسبك وهرانتي اللي غرفت حق اللي غوتو وحكى لو كود إيمان لو أن قبنا إيه سينا قبنا إيه بابك ما سعنيسه مركا ما ننت واسيد يوكله وين الأفك هذا قبت دب صلاة الفجر كهرب وسوق عبد أفك قبصه الدون هدوية هاي هدي عبادات هاي هدي أي وحويان ذكري الله هدوية هاي هدي قرآن هدي أي تاي هدي علم برشة أي تاي ما ننت أول كذا كفائدة يسوع قيبت عندما وحويان هذا وحول لما يستي لذلك تذكر الناجحين تهوب ومحمد يقول يستي ولو قاربها النقدين دراسة للسميان أركي تذكر الدون كقول قالها بدن الدون كدن قال لي مسلم نينك وقدم بيو سريرته حقود ما ينسى شنط أما بكوي تبنك ساعة صلاة فجر كهرة أول تنبيس قال لي مسلم نيروبي ده وحنكون نقانا ضدك هذا ناجحين تأه وقناعسي قالوا يقانو حفيز جامعة مسيكوت كدارين بدنا كميت وطونك يرجع جو وح معروف هو اللي يقان وسنة هي الدعاء والنبي كان يدعي صلى الله عليه وآله وسلم مرك قفك مؤمن كبركة ما لها إجرتين لور راديو وإلهي محمد حقي وين كله كده هي أسباب إلهي سبحانه وتعالى وكذا أسباب شرعية إن الله إيماننا أي نفط يدينا بكل الدار ميا إلهنا سبحانه وتعالى كبرنا بسم الله وصفات علا